Salaamu calaykum. Marka aad ruux saaxiib ahaydeen oo aad muddo dheer istaqaaneen oo aad wax walba saaxiib ku ahaydeen dhareer wadaag aad ahaydeen, haddii adiga iyo saaxiibka qofka aad ahaydeen ama laba wiiloo saaxiiba ah ama laba gabdhood oo saaxiiba ah, saaxiibtinimadu ma aha keliya in nin iyo naag ay saaxiibaan, cid walba ayaa saaxiibta. laakiin marka qofka saaxiibka ah aad kala hartaan ama qofkaad aad goydo oo aad ka harto laana qalad uu kaa galay ama isagoo saaxiibka ahay ma saaxiibada ahayd qaladka ay kaa gashay oo aad runtii u weyn ood carootay oo qofkaas aad goydo, marna ha ka sugin qofkaasi in uu kaa sheego markii bulshada la dhex joogo in uu kaa sheego wax wanaagsan ama waxa aad saaxiibtinimadiinii ee ku kala go'day ama aad ku kala harteen. Lagama yaabo marnaba in uu kaa gudbiyo fariin aad u qurux badan oo ah inaad saaxiib wanaagsan aad ahayd oo aad kala harteen waqtigiina uu intaa ku ekaaday ee waxa uu bulshada kaama gudbiyo ee waxa uu kaaga gudbiyaa ama ay kaa gudbisaa fariin aad u qaloocan oo aad u xun oo ah in aad tahay qof xun oo intii aad adigu xumaan aan lahayd, qof kasta xumaan ayuu leeyahay, wixii adigu aad lahayd iyo wax ka sii daran oo isagu uu dusha kaa saaray ayuu kaa gudbiyaa. Ka foojignaaw kana dheeraaw saaxiibada xunxun. Mar walbana salaad walba oo aad tukato ku duceyso qof walba qofka aad la saaxiibayso inaadan waxa la yiraahdo common interest ama waxa dana ah inaadan qofka kula saaxiibin ee aad kula saaxiibto saaxiib wanaagsan, mid alla ku xiran, mid wanaagsan in aad la saaxiibto. Gidigeena waxaan leenahay saaxiibada aan leenahay allaha ka dhigo saaxiibo wanaagsan oo ku wanaagsan akhlaaqiyan iyo diiniyan. Mar walba ka foojignaaw oo ka dheeraaw saaxiibka xun. Kula saaxiib alla dartiis. Qofaad alla dartiis kula saaxiibtay ma uu noqdo qof xun ee waxaa xumaada qofka aadan kula saaxiibinin alla dartiis. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.